السلام عليكم سوري صاحبيال meel kasta oo ka joogtiin dunida daafiyada magacaygu waa Axmed Baar halka aan nagala socotiin waa Himila Media Production iyo waliba sidoo kale Himila High School hagaag صاحبيال waxaan maanta bilaabaynaa casharkii saddexaad ee ahay computer basic haddaba casharkii saddexaad ee computerka basic ama lesson 3 maxaan uga hadli doonaa casharkii saddexaad waxaan uga hadli doonaa afarta qodob uga hadli doonaa ayaa waxa la yiraahdaa qodobka koowaad u horeeya wuxuu yahay how to hit desktop icons wuxuu ku leeyahay sidee loo qarshaa icons kan saaran desktop computerkaaga icons waxa la yiraahdaa kuwan desktop kaaga saaran la yiraahdaa kuwan waxa intaan desktop ka saaran ayaa waxa la isku yiraahdaa icons hada wuxuu ku su'aasha ugu horreeyay wuxuu ku yiraahday sidee loo qariyaa ama loo soo bandhiga icons ka saaran desktop kaaga waan arki doonaa insha Allah waana faahfaahin doonaa sidoo kale qodobka labaad wuxuu ku leeyahay how to change username sidee loo bedelaa username waxa la yiraahdaa tusaale ahaan hadda computerkan waxa galshay log marka galshay xarafan taabta xarafan kamid waxa uu jeedaa halka inuu ku soo qoraa bc inuu ku soo qoraa username waxa la yiraahdaa bc gaas magacaas la yiraahdaa username waa adminka ama hogaamiya aniga hadda waxa ka dhigaa aan faaro kale ama magaca waxa uu daraa youtube-ka Himila High School ama Himila Media Production adha username waa halkan sidoo kale qodobka saddexaad ayaa waxaan ku baran doonaa how to icons large medium or small icons kan ku saaran desktop computerka sida looga dhigo kuwa waaweyn yar iyo kuwa dhexe intaba ayadana waan ka hadli doonaa oo qodobka saddexaad ayaan uga hadli doonaa qodobka u dambeeyo ahna qodobka afraad ayaa wuxuu yiraahday how to change password macnaha computerka passwordkiisa sidee loo bedelaa haddii password hadda mid cusub aad samaysaysa sidee loo sameeyaa ayadana waa faahfaahin doonaa hagaag aynu ku bilaawno su'aasha koowaad ama qodobka koowaad ayaa wuxuu ahaay how to hit icons sidee loo qariyaa iconska tusaale ahaan iconska saaran desktopka kuwan oo dhan waxaan rabaa inaan hal mar qasho haddaba isdhibi ma meel banaan taga sidii noo caadin taayba red click ayaa hal mar dhaha hal marka red click raado halkan ay ku qoran tahay view oo u horeyso ayaan select gareeyaa kadibna halkan hoose ay ku qoran tahay show desktop icons ayaan ku dhufanayaa hagaag hadda waxa u jeedaa iconska dhamaayo meeshan yaalay way ka baxeen oo computerka meesha waxa soo banaan dhaladii computerka oo kaliya hadaad calaamada Windows ka taabto waa ka u jeedaa icons guud ahaantood way maqan yihiin oo meeshan hadda way banaanta marka si aad dan u soo bandhigtid waxba sidii meel banaan taga right click dheh halkan viewdaas ku dhufane kadibna waxa ka dooranay show desktop icons hadda waxaan baranay hal qodob oo ka kooban laba qodob oo is saaran sida icons kan loo qariyo iyo sida loo soo bandhigo inta badan computerka ka bedeshay Windows-ga guud ahaan iconsku way qarsan yihiin hagaag marka computerka ka bedeshay Windows waxa uu la soo noqaa waxa kamid ah this PC-gan network-gan recycle bin-kan control panel-ka iyo waliba user-ka oo la soo noqonaa inta la soo noqonaa marka ayaguna way qarsan yihiin qaabka loo soo bandhigan waxa ku arki doonaa qaabka loo bedelo Windows oo cashirkeedu waxa uu ku jira YouTube-ka marka si aad bedeshay Windows iyo waliba soo bandhigi lahayd hagaag qodobka labaad ee ah how to change username sidee loo bedelaa username-ka aan hore iyo soo tusay PC-gan ayaan bedelaa waxaan u bedeli doonaa magacayga oo ah Axmed Faarax haddaba waxa bay isdhibi maayay ugu horeyn waxaan soo furaa control panel-kan ayaa soo furaysa haddii control panel uu ku saarnaan desktop-ka waxaad tagaysaa halkan start menu-ga kadibna waxaad ku qoraysaa control panel ayaa ku qoraysaa hagaag waa kan aan control panel sidaan ayuu ugu soo baxaa sidaan markuu ugu soo baxo adiga waxa laga yaabaa inuu kugu soo bixin qaabkan large icons kan kugu soo bixin haddii uu kugu soo baxo sidaan tusaale ahaan sidaan oo kale inuu kugu soo baxo ayaa laga yaabaa oo intaan option bis uu kugu soo saaro hadda markaan large icons iraado waxba iska bedeli ma size kale isbedela maahan option kale ku soo darmaayo ma jiraan laakiin size ka ayaa isbedela marka sidaan markuu kugu soo baxo haddii sidaan uu kugu soo baxo halkaas ay ku qoran tahay user account ayaad ku dhufanaysaa halkaas ay ku qoran tahay user account haddii uu kugu soo baxo large haddii uu kugu soo baxana halkan ayaa waxa ka raadinaysaa meel ay ku qoran tahay user account waa kana user account hagaag waa kana userka hadda aniga joogo ayaa waxaan rabaa inaan ka bedelo magaca kaliya marka userka markii aan sidaan u imaaday waxaan tagayaa ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay change your name halkan ay ku qoran tahay change your account name halkaas ayaan ku dhufanayaa hadda waxa ay u qoran this PC waa ujeedaa PC ay u qoran PC oo macnaheedu ay tahay personal computer ayaa la yiraahdaa PC insha Allah ayadana waa arki doonaa hadda marka waxa u bixinaa aniga magacayga tusaale ahaan Axmed
عليه احمد فارح عليه احمد فارح marka iraado kadib waxa leeyahay change name magacaan iga bedel عليه bal hadaba computerka aan marka loo galsho bal inuu soo saaro احمد فارح kale hagaag halkan maxaa u jeedaa oo hore waxay ahayd DC laakiin hadda maxay noqotay احمد فارح waa u jeedaa احمد فارح ay noqotay hagaag waxaan filayaa qaabka userka loo bedelaa waa isla fahanay hagaag waxaan tagaynaa mar kale waxaan soo furaynaa isla warqadii ayaan soo furaynaa bal qodobka inoo xigo iyo wuxuu yahay waa qodobka saddexaad wuxuu ku leeyahay how to icon large medium or small icons kan ku saaran desktop computer kaaga ma ka dhigi karaa kuwa waaweyn kuwa dhexe iyo kuwa yar yar intaba hagaag waad ka dhigi kartaa right click ayaa leedahay kadibna waxaad ku dhufanaysaa halkaas ay ku qoran tahay viewda sidaan hore u soo arki jirnay hadda aniga waxay ii joogaan iconska medium ay ii joogaan large ka dhiga kuwa waaweyn ka dhiga hagaag waa kuwana oo ii soo dhawaadeen hadda hoosta ayay iga soo galeen waa u jeedaa wax walba shay walba waa u jeedaa waa kana hoosta ayuu iga soo galay faylka hadda casharka uu noogu jiro ka sharxayna waa kana hagaag haddaba marka waxaan rabaa inaan ka dhiga haddana small waxba sidii ma right click leeyahay halkaas ay ku qoran tahay view ayaa ku dhufanaya kadibna waxaa leeyahay small maxaa u jeedaa icons waxay noqdaan kuwa aad u yar yar noqdaan ayagoo yar yariisa ay desktop saariyeen marka badan aniga waxaa isticmaalaa qaybtan medium-ga ayaa isticmaalaa medium icons ayaa isticmaalaa waa ka medium icons waa dhexdhexaad mana waaweyn mana yar yaro qayb dhexe ayaan joogaa haddaba saddex qodob ayaan soo fahnay waxaa noo xigo qodobka afraad oo ah how to change password or create password macnaha haddii password hadda oo cusub aan samaynay waxaa isticmaalaynaa waxa la yiraahdo create ayaa isticmaalaynaa laakiin haddii passwordka uu hore noogu samaysnaa oo password hore noogu samaysnaa oo ahayna waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaana change aniga hadda password computerka iguma xirno marka waxaa isticmaalaa create oo passwordka ay abuuray kadibna waan bedelaa passwordka marka abuur hagaag waxba is dhibi maaye saaxibayaal waxaa galaa control panel markaas saan usoo furo kadibna waxaa sii galaa user markaas saan gal halkan ayaa waxaa ka raadinaysaa meel ay ku qoran tahay create password waa ujeeda halkaas waxaa ku qoran create password ayaa ku qoran hagaag aniga hadda wuxuu leeyahay macnaha haddii aad rabtid inaad password sameydid computerka restart u dirayo hagaag saaxibayaal muuqaal kale ayaan uga hadli doonaa macnaha hadda wuxuu taagan yahay ama sida uu amraaba computerka hadda shaqo ayaa ka socoto asaguna wuxuu leeyahay haddii aad rabtid in la bedelo passwordka computerka restart u diro uu leeyahay aniga hadda computerka restart u diro maraba shaqo badan ayaan ku hayaa waxaan ku duubaa casharkan hadda ku sharaxa ku duuba sidoo kale cashar ayaan ku diyaarinaya waa ujeeda computerka programming waxba ii furno aan ku diyaarina maraba marka hadda computerka inaan anigu donsho hadda yartaan maraba marka sidaas awgeed waxaan sameynaa cashar soo socda insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa sidii password abuur lahayd sidoo kale passwordkana aad u bedeli lahayd casharka soo socdo ayaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay